maanta waxaan ka hadli doonaa wax muhiim ah. Having an accent is a beautiful thing. Haa, waa run. Markaad leedahay accent ama lahjad wixii loo yaqaano waxay ka dhigan tahay inaad ka timi meel gaar ah, oo taasi waa wax qurux badan, waa wax xiiso leh. laakiin waxaa ka muhiimsan confidence, kalsooni. haa, xitaa haddaad leedahay accent xooggan, haddii aad ku hadasho kalsooni, dadka way fahmi karaan, wayna ku soo dhoweynayaan. mararka qaar waxaad rabtaa inaad ku hadasho slowly, tartiib, si aad fikraddaada u gudbiso. practice ayuu furaha yahay. ku soo noqo, ku celceli, ha ka baqin inaad khalado. okay, hadda aan bilowna casharkeenna maanta waxaan baranaynaa waxaa hore u taqiinay, ama hadday doonto way kugu cusub tahay. waa wax basiit ah. how are you? how are you? marka hore waa kala jarjaraynaa. ereyga u horeeya muxuu yahay? how waxay ka dhigan tahay sida, sidee. waxay isticmaali kartaa ereyo kala duwan. tusaale, how is your day? sidee maalintaada tahay? how is your day? sidee maalintaada tahay? ku celceli, waqtigaad qaado. maxaa ku xiga? how do you feel? sidee aad dareemaysaa? okay, ereyga meesha ku jira r maxay tahay? r waa verbka ahaanshaha, ahay. waxaa lagu isticmaali karaa su'aalaha iyo hadallada. tusaale, you are smart. waad caqli badan tahay. okay, are you ready? ma diyaar baa tahay? you, adiga ama idinka, hadba ciddaa la hadlayso bay ku saabsantay. you look happy. waxaa kaa muuqata farxad. I like you. waan kaa helay. marka aan isku darno how are you, waxay noqonaysaa sidee tahay. taas oo ah mid aad u fudud in la xasuusto. xasuuso ardayga qaaliga ah, waa okay inaad leedahay accent. waxa ugu muhiimsan waa inaad ku hadasho confidence. ha ka baqin inaad hadasho slowly, tartiib. practice ayaa ka dhigaysa mid fudud. casharka maanta isku day inaad isticmaasho how are you mar kasta aad la hadlaysid saaxiibada ama qof aad taqaanid ama macalinkaada af ingiriisiga naftiisa. wuu ku soo dhoweynayaa. haye, aad baa u mahadsantihiin. kulii barwaaqa idin rajeeda.